dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu ka baxsaday goobta uu ku xirnaa wasiirka amniga Jubbaland Yunis Durraan Cali hayno faahfaahiyo warkan. taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo maanta xabsi uu ku xirnaa ka baxsaday. taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Sakiyo Xuseen Axmed ayaa barteeda Twitter-ka fariin kooban oo ay ku baahisay waxay ku sheegtay inuu xabsiga ka baxsaday Cabdirashiid Janan. sidoo kale waxay sheegtay Sakiyo in laamaha ammaanka ay ku raad joogaan kuna dadaalayaan sidii loo soo qaban lahaa Janan oo ay sheegtay in loo haysto dambiyo dagaal. Cabdirashiid Janan ayaa la qabtay bishii Agoosto 31 sanadkii dhamaaday 2019 waxaana dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inuu galay dambiyo culus. xarigiisa wasiir Janan waxaa cambaareeyay maamul goboleedka Jubbaland halka dhinaca kale xarigiisa ay soo dhaweysay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. waray heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in halka uu ka baxsaday la keenay wasiirka amniga Jubbaland 5 maalmood ka hor. waxaana wararku intaa ku darayaan inuu ka baxay meel daaqad ah markii uu baxsanayay. wasiirka amniga Jubbaland ayaa dowladda Soomaaliya wuxuu u xirnaa muddo 5 bilood ah hal mar kaliya ayaana maxkamad la soo taagay. warar aan la xaqiijin isla markaana aad loo hadalhayo ayaa tilmaamaya in safar dhanka badda ah uu ku tagay magaalada Kismaayo Cabdirashiid Janan isla markaana doon uu ka raacay magaalada Muqdisho. wararkaasi wuxuu ku soo kordhay wararkeena barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. ahlu sunna wal jameeca ayaa ku dhawaaqday liiska xildhibaanada cusub iyadoona isla maanta ay doorteen gudoomiye baarlamaan Maxamed Cabdiwali Tuuxo oo Dhuusamareeb jooga warkaan inoo faahfaahiyo. ururka ahlu sunna wal jameeca ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb uga dhawaaqay liiska xildhibaano cusub oo gaaraya 69 xubnood kuwaasi oo ku biiray 20 xildhibaan ee horey ay u soo xushay ahlu sunna wal jameeca. maxamed yaxye oo ka mid ah xildhibaanada ahlu sunna ayaa ku dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee galmudug garabka ahlu sunna wal jameeca. xildhibaanadii dhinaa ee 69 ka ahaa maanta ayaa la soo gudbiyey. xildhibaanada sharafta leh oo 69 ka ah waa in ay waajibaadka loo idmaday ay gutaan si marxaladaha galmudug ee adag ay soo martay uga baxday. xildhibaanada labaad ee galmudug ee sida wanaagsan loo soo xulay ahna xildhibaanada rasmiga ah ee galmudug waa in maanta laga bilaabo ay waajibaadkoodii gutaan maadaama ay yihiin xildhibaanadii sharciga ahaa ee dowlad goboleedka galmudug. waajibkoodana saacaddan laga bilaabo way gudan karaan. waxaa kale oo guddiga farsamada maamul samaynta maanta shaqadoodii halkan ayay ku eg tahay maadaama ay soo gudbiyeen xildhibaanadii rasmiga ahayd. xildhibaanada ayaa marka la shaaciyay waxa ay doorteen gudoomiyey sidoo kale gudoomiye ku-xigeen. talaabadan ay qaaday ahlu sunna wal jameeca ayaa qayb ka khilaafa ka taagan doorashada galmudug waxaana hadda muuqata in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay martigelin doonto 2 doorasho iyo sidoo kale 2 madaxweyne. Maxamed Cabdiwali Tuuxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb. madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka dalbaday dowladda federaalka iyo hay'adaha samafalka inay wax ka qabtaan cudurka shaban biyoodka oo ka dilaacay gobolka Hiiraan. Ismaan Aadan Carays ayaa Hiiraan warkaan inooga soo diray. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ay shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa wuxuuna ka codsaday hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan inay wax ka qabtaan cudurka shaban biyoodka ay farabaan ku haya shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne. Mr. Waare ayaa wuxuu ka dalbaday hay'adaha inay qaadaan tallaabo degdeg ah maadaama ay sii kordhayso tirada caruurta uu soo ridanaya cudurka shaban biyoodka. sida gudoomiyuhu uu sheegay runtii waxaan la tacaalaynaa dhibaatooyinkii ka dhashay shaban biyoodka dilaacay magaalada oo runtii aad xaaladiisu ay dhibaato u leedahay. waxaan isugu nimid marka inaan wixii hay'adaha iyo wixii maamula iyo wixii ganacsataa iyo wixii mataqaanaa arrintaas wax qaban kara aan uga tashanno sidii wax looga qaban lahaa. runtii arrintaas abaabulkeeda xoogaan aan u galnay. keliya waxaan rabaa inaan wakiil gareeyo hay'adaha samafalka oo runtii shirka nagala soo qayb galay kiisyadooda muxuu ahay Nairobi iyo Xamar inay soo xoojiyaan awoodna soo siiyaan kiisyada Beledweyne ku yaala inay arrintaas wax ka qabtaan. waxaa kaloon muxuu ahay iyada doorkeedii aan rabnaa inay soo xoojiyaan wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo wasaaradda ka hortagga masiibooyinka. waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badanna inaan u soo afjarno dhibaatada shaban biyoodkaas oo magaalada ku hayo. hadalka madaxweyne Waare ayaa imaanaya xilli isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ay jiifaan caruur tiradooda kor ay u dhaafayso ilaa 50 caruura kuwaas oo laga kala keenay deegaanada
ku dhow magaalada beledweyne iyo xaafadaha magaaladaba. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta KNN beledweyne. wararka ka imaanaya gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in halkaasi lagu qabtay hub fara badan iyo rag watay. ciidamada booliiska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa gacanta ku dhigay 39 biskooladood kuwaas oo lagu qabtay magaalada Qaran oo magaalo u dhow xuduudka Wajaale. hubkani ayaa la sheegay in laga keenay dhanka magaalada Wajaale iyadoona gacanta lagu dhigay 3 nin oo ku eedeysan inay hubkaasi wateen sida lagu sheegay warbaahinta dowladda. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo hor la geysay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye xilli dhismihii wadadaasi oo hakad ay geliyeen weerarada Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Xuseen ayna faahfaahiyo. weli waxaa hakad ku jira dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye taasi oo dhismaheedu ahaa mid socday laakiin hakad uu ku yimid tan iyo markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay qaraxyo la eegteen injineeradii dhisayay wadadaasi. muddo 2 toddobaad ayay hakad ku jirtaa wadada isla markaana ay tahay mid guud ahaanba la xiray. wadada ayaa waxaa laga kala xiray dhowr meel kuwaasi oo intooda badan la kala dhigay ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan. sidoo kale waxaa xusid mudan in dawladda federaalka Soomaaliya ay kordhisay ciidamada sugaya ammaanka wadadaasi kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa wadadaasi ay ka wada hadleen sidii loo sugi lahaa ammaanka injineerada iyo shaqaalaha dhisaya wadadaasi. qaar ka mid ah gaadiidleyda isticmaala jirtay wadadaasi oo idaacadda kulmiye la hadlay ayaa waxay ka hadleen hakadka ku yimid wadadaasi iyadoona arrintaasi walaac ka muujiyeen. leo wadadan ex control ka bilaw ilaa ceelasha aan ka dhex shaqeeyeen wadadii awalba macnaha dhulkii oo macnaha oo zaid oo jayga oo lugaha naga banjirinay aad ugu rafaasanayna haddana macnaha ayadoo awalba goosgoos ugu shaqeeyeen haddana toosa loo xayiray ciidamada booliiska awalba macnaha meesha oo joogeen oo mar dhow la soo bedelay booliiska aan ku ogeyn bariyahan waa la bedelay. saaka waxaan ku arkay ciidamo asluubta ah wax gaari dhaqaaqay mala gawaarida waaweynka xataa xamuulka xataa wax dhaqaaqay mala kulligoodi macal bajaaj wax kala socdo mala. haye marka meeqa isbuuc wadaha ku jirta tan iyo markii injineerada Turkiga la qarxiyay. wallahi injineerada Turkiga markii la qarxiyay isbuuca gudihiisa aan ka dhex shaqeynay wixii ka dambeeyay wax goosgoos iyo gawaari safar aadayo iyo hal oo wax socday wax waa arkaynay laakiin anaga waa naga kansal awal dhib ku qabnay haddana meeshaas gudaheeda waa naga kansalay wax kala socdo male shaqadeena hadda saasay ku xayran tahay xamar gudaheeda la ayadana jaamkeeda ilaaha og ayadana marka dhibaato weyn aan ku qabnaa. markii hadda wili sideedii waay wax kala socdo laamigana ma lisay waa xiran yahay wili maxaa ku soo kordhay marka wax ku soo kordhay ma lahan laamiga waa laga wareegsiyaa bacaada la marooyay ay xiiq xaafadaha dhexdooda haye wadada waa xiran tahay markaad weydiiseen ama saraakiisha wadooyinka jooga ama ciidamada maxay idin sheegeen waa lis doonaa shaqaan ka qabaynaan dhahoyaale haye waxa laga qabo hooyina ma arag marka meeqa isbuuc ay hakad ku jirtaa wadada isbuuciyo wax badan ay ku jirtaa haye aan la soo koobi karin ba waxaan ugu sheegay in ciidamo la keenay ciidamada waa joogaan haye waa laamiga joogaan ciidamadii hormay ama ciidamo kale ciidamo cusub waay haye waxaan codsanaynaa in laamiga noola furo insha Allah. wadada xiriirisa Muqdisho Afgooye ayaa waxaa dhismaheeda wada shirkad laga leeyahay wadanka Turkiga iyadoona dawladda Qatar ay maalgelinayso dhismaha wadadaasi. sidoo kale dawladda Turkiga waxay sheegtay in marnaba aysan joojin doonin dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho Afgooye. maamulka Puntland ayaa bilaabay diiwaangelinta qaxootiga Yemeniyiinta iyo Itoobiyaanka ku sugan deegaanada maamulkaasi. Umar Maxamed Soomane ayaa faafaynta warka inoo soo diray. wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo kaashanaysa hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan UNHCR ayaa bilaabay in ay si rasmi ah u diiwaangeliyaan dadka qaxootiga ah ee ku nool deegaanada Puntland kuwaas oo intooda badan ka soo barakacay wadamada Yemen iyo Itoobiya. diiwaangelintan ayaa ah mid loo sameynayo hab casri ah waxaana dadka la diiwaangelinayo laga qaadayaa fara iyo indho iyadoo ujeedada diiwaangelintan ay dawladda ku sheegtay in la doonayo sidii lagu ogaan lahaa tirada dadka qaxootiga ah ee ku nool deegaanada Puntland goobaha ay u badan yihiin iyo inta ay halkan joogayaan. magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa iminka laga bilaabay diiwaangelinta dadka qaxootiga ah waxaana la sheegay in la qorsheynayo in dhawaan magaalooyinka kale ee Puntland laga bilaabo diiwaangelintan isla markaana la ogaanayo tirada saxda ah ee qaxootiga ka yimid wadamada Yemen iyo Itoobiya ee ku nool deegaanada Puntland. waa markii ugu horeysay ee diiwaangelin rasmi ah loo sameeyo tirada dadka qaxootiga ee ka soo barakacay wadamada Yemen iyo Itoobiya kuwaas oo ay si rasmi ah uga bilowdeen qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland. Umar Maxamed Soomane
warbaahinta KNN garowe. weli waxaad degeysanaysaan warka habeen radio kulmiye iminkana qodobka dibadda. ugu yaraan 11 askari oo dowladda Afghanistan ayaa ku dhimatay kadib weerar xooggan oo ay qaadeen dagaalamayaasha ururka Taliban. saldhigga weerarka oo ka dhacay ayaa waxaa lagu magacaabaa Baluq Mari waxa uu ku yaalaa magaalada madaxda gobolkaasi. saraakiil ciidamada ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa waxay sheegeen in dagaalkaas